halbeegga sooyaalka taariikhda Soomaaliyeed waxaa lagu cabiraa suugaanta sida maahmaahayaha iyo gabayada. waxaa jira maahmaah ama halkudheg la yiraahdo magaciisa ninka madhalaha oo aan dhalin dhalaan rag kale dhaleen uma dhimriyaa la yiri. xigmadu waxa weeye uma naxariisto weeye. qofka madhalaha oo aan qalbiga beerkiisa beer wax dhalay waa balaa la yiraahdo aan wax dhalinin uma naxo danyarta agoomaha iyo masaakiinta iyo shacabka Soomaaliyeed uma naxa ninka noocaaso. waxaan tusaalaha u soo qaadanayaa maamulka aan kalsoonida shacabkiisa ku imaanin asna uma naxa shacabkiisa. waxaan rabnaa u baahanahay 3 gobol baanu nahay oo 2 jibaar baanu ka badanahay. Jubbaland tala lagu dhisaan rabnaa anagu tala wadaag Jubbaland lagu dhisaan rabnaa. waxaan rabnaa Jubbaland dadkeedu xor yihiin. xorriyadu waxay ka bilaabataa qofku inuu gudbin karo dareenkiisa oo markuu hadlo hadduu bahal qaniino oo yiraahdo Kismaayo dhexdeeda anoo marahayaa bahal qaniinay hadduu yiraahdo sheego inuusan ka baqayn 3 waxyaalood qofkaas. 3 waxyaalood waxa weeye qofku inuusan ka baqinin in si baqayr xaq in la dilo oo la yiraahdo wuu hadlayo bahal baa qaniinay buu yiri hal la dilo inaan la oran oo san ka baqin taas baa la rabaa. waa xorriyada bay ka mid tahay. qodobka labaad oo la rabaa inuusan walwalkiisa ku seexan waxa weeye baqayr xaq baa sidoo kale lagu xirayaa inuusan taasna ka baqinin baa la rabaa oo xor ka yahay. waa astaamaha xorriyada weeye. qodobka saddexaad waxa weeye siyaabaha dhacay inaan inuusan ka walwalinin arma caruurtaadii iyo reerkaagii iyo gurigaagii laga tarxiilaa oo diyaarada inta jeegada lagu qabto lagu saarayo laga tarxiilaa wadankaagii. 3 calaamadood oo xorriyada qofka aan ku seexan 3 walwalkooda qaba usan xor u ahayn inay Jubbaland ka xorowdaan rabnaa oo Jubbaland ka xora arrimahaas baanu rabnaa. waxaan kale oo rabnaa Jubbaland cadaalad ku dhisan